السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rajaynayaa inaad kulligiin caafimaad qabtaan. magacayga waa Salmaan Maado, bare wax ka dhiga jaamacadaha dalka, ahna maamulaha bartaani Afoogi. 5 sano ka hor 9 November 2019 waxay ahayd markaan hawada aan soo gelinay bartaani Afoogi. marka si aan ugu dabaaldegno guushaan muhiimka ah, waxa aan ku haynaa warar xiiso leh oo gaar adiga ku ah. ila socod. 5 sano ee la soo dhaafay waxaan nafteena aan u hurnay inaan siino ardaydeena waxbarasho tayo sare leh iyo khibrado waxbarasho oo cusub anagoo adeegsanayna tiknoolajiyada ugu dambaysa ee waxbarashada online-ka ah iyo inaan u soo doorno macallimiin aqoon u leh majaalka ay barayaan. 5 sano ee la soo dhaafay waxaan balaarinay takhasusyada aan bixino anagoona idin soo bandhignay qaybta luqadaha anagoo ardayda markaas ku barayna 2 diblooma oo lagu baranayo luqadda Carabiga iyo Ingiriisiga anagoo u diyaarinay hab aan hore loo arag geyiga Soomaaliya. sidoo kale qaybta ama takhasuska graphic design anagoo soo bandhignay koorsooyin aan ku sharxino barnaamijyada ugu sareeya caalamka ah ee la isticmaalo haddii rabtid inaad graphic design noqotid sida Photoshopka, Illustratorka iyo InDesignka anagoona u diyaarinay hab practical ahaan ah. ugu dambeynna waxaan hadda aan bilaabnay inaan soo gudbino koorsooyin horumarsan ee majaalkaasi quseeya. sidoo kale qaybta barashada xisaabta waxaan ka soo bilaabnay bilow ilaa waxaan rabnaa inaan gaarno meel horumarsan anagoo rabna inaan ku daboolno dhammaan heerarka xisaabta, laakiin weli takhasuskaasi koriinkiisa ma dhameystirmin ee weli waan wadnaa diyaarintiisa. sidoo kale ardaydeena waxaan la soo wadaagnay 5 sano oo aan ku jirnay takhasuska tafatirka videoyada video editing anagoo u soo bandhignay ardaydeena koorsooyin sida ay muuqaalada u edit gareyn lahaayeen anagoona la wadaagnay khibradan u leenahay majaalkaasi iyagoo isticmaalaya kombiyuutarkooda ama mobilkooda. hadda qofka hadduu mobil isticmaalay hadda waxaan barnay hab lagu edit gareyn karo muuqaalada. sidoo kale qaybta science-ka maktabadani waxaan weli wadnaa koriinkeeda anagoo hadda qaybta chemistry-ga iyo physics-ka si rasmi ah u furi doono sanadka dambe insha Allah 2025 anagoo u diyaarinayno hab casri ah oo fudud qofkii muraajac rabana uu ka heli doono insha Allah. qaybta ishorumarinta ama productivity qaybtani waxaan ku soo gudbinay koorsooyin qofka ka kaalmeynaya sida uu horumarin karo shakhsi ahaantiisa iyo midda xirfadiisa anagoona koorsooyin badan halkaan ku soo gudbinay welina aan rajaynayno bilaha soo socda in koorsooyin cusub aan soo gelino. qaybta barashada kombiyuutarka asaasiga qaybtani waxaan ardayda ku horumarinay xirfadooda isticmaalka kombiyuutarka anagoo ugu bilaabayno bilow ilaa heer horumarsan aan gaarsiinayno iyo ugu dambeyn qayb cusub aan soo kordhinay sanadkaani waana qaybta web design-ka anagoo ardayda ku horumarinayna xirfadooda dhisidda website-yada iyagoo isticmaalaya WordPress min bilow ilaa heer horumarsan aan ku baraynay koorsooyin aan diyaarinay arrintaasi khusaysan. laakiin intaasi oo dhan ma ahan waxaan aad ugu faraxsanahay in aan ku dhawaaqno in aan dhawaan furi doono waaxyo ama qaybyo ama takhasusaad cusub sida takhasuska suuqgeynta iyo takhasuska barnaamijyada ama programming iyo ganacsiga. kordhintani waxay ka tarjumaysaa sida ay noogu go'an tahay in aan ku sii jirno safka hore ee hal abuurka waxbarashada iyo buuxinta baahiyaha kala duwan ee ardaydeena. waxaan aaminsanahay in waxbarasho uu helo qof walba, sidaas ayaana mar walba waxaan ugu dadaalnaa in qiimaha koorsooyinkeena aan ka dhigno mid uu awoodo ardayga Soomaaliga ah. saas ay tahay sanad guuradeena darteeda waxaan bixinaynaa qiimo dhimis 10% ah dhammaan koorsooyinka aan bixino laga bilaabo 10 November ilaa 17 November. haddii markaa aad raadinayso inaad kor u qaado xirfadahaaga hadda waa waqtiga ugu habboon aad maalgashan karto waxbarashadaada iyo naftaada. waad ku mahadsan tahay inaad qayb ka tahay ardaydeena iyo kalsoonida aan ugu qabtid. insha Allah anagana waxaan rajaynaynaa waxbarasho faa'iido leh inaan kuu soo gudbino si wada jir ahna aan u korno waxbarasho faa'iido leh.